إله بعيسي له وصرف له وملك له وأود له إله هاسو كان إنا أبورتي وما أنت هل كان سوق كاني إله بان أمها نقينا وأصور نقرينا intaas xuska ilaahay haddaan uga gudbo mar labaad waxaan salaamayaa dadkan sharafta leh madax iyo loo madax ahaaba rag iyo dumarba isbitaalkan waa mashruuc weyn oo macna ku fadhiya haddayna la joogaan dad ajnabiya oo muhiim ah waan jeclaan lahaa hadalka dadku ku hadlahayo in loo fasiro si ay u ogaadaan dadka ra'yigiisa iyo wuxuu mashruucan ka qabo aad baan ugu mahadcelinayaa mashruucan dadkii gacanta ka qaatay oo sababta u ahaa in uu dhismo oo sababta u ahaa in maanta la isugu yimaado waa u mahadcelinaya waan u ducaynayaa waxaan leeyahay khayr allaha siiyo intii kale oo la shaqaysay oo ka shaqaysay mashruucan iyo hirgelintiisa iyo nooleyntiisa iyo meeshaan inuu soo gaaro aad bay ugu mahadsan yihiin ayaguna aad bay ugu mahadsan yihiin tawfiiqda allaha noo waafajo amuurtayada allaha noo hagaajo intaa waxaan ku darayaa mashruuca markaan intaa kaga baxo kelmad yar oo aan rabo halkan inaan kaga faa'iidaysto waxaa nagu dhacday abaar weyn oo dalka Soomaaliya iyo geeska Afrikaba ku dhacday ilaahay aanu soo noqono oo u toobad keenno oo barino oo yaa la isxastin oo nacayb hal baabi'iyo ciduu ku jira ha iska baabi'iso ilaahay wada jiraan u barino ilaahu noo soo deeq rabbiyo ilaahu noo soo deeq ilaahay oo rabbiyo waxaan ka baryaynaa khayrka adduunka iyo kan aakhirada ilaahu waxaan ka baryaynaa qalubtayada adaa isu dumi kara ilaahu qalubtayada isu dum ilaahu waa kuu soo noqonay abaarta iyo culayska iyo waxaan haya rabbiyo naga qaad dambigeena iyo kii waalidkeen allah inoo dhaafo amuurteena dhamaanteed allah inoo sahlo qof walbaaba wuxuu uu tabayo cudur iyo faqri iyo dhibaato u gaar ah iyo mid guudba allah naga qaado waxaan kala oo salaamaya oo dadku ka tagtagahayay isbitaalka degmada Jiriidana maanta la furay laftiisaan salaamahay assalaamu calaykum ya waxaan kala oo salaamaya inta iga dhagaysanaysa oo qurbo jooga ha ahaato ama ha ahaato dadka wadanka jooga ama ha ahaato inta raaliga ka ah ama ha ahaato inta ku faraxsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baan leeyahay waxaa saaka farxadii ah anoo da'daan joogo oo ku taamahay ama waxaan haddaan nahay reer Jiriidan waxaan ku taami jiray beenna sheegi mahayo waxaan maqlay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu oran jiray yaa rabbi abni wal iimaan waxaan maqli jiray anagu ku taami jiray isbitaal iyo jid baan ku taami jiray isbitaalkii maanta ilaahay waa noo haysiiyey meesha la yiraahdo jidkeena rajo fiican baan ka qabnaa ninkii ilaahay gaarsiiyo ama calaf ku leh aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waxaan kala oo salaamahayaa nimanka la yiraahdo aad aan priority-ga u siinahayaa qurbo joogta oo ka qaadatay qayb gaar ah ma aha dadka in la xaqiro qofka abaalkiisa in laga dhaco inteena kale ama waa baritaari jiray ama raalli baan ka ahayn ama waa dhiiri gali jiray naf iyo maal juhdi badan dadaal badan shanta qaaradood meesha u shaysa dadkii ka soo abaabulay qurbo joogtu ahaa aad baan ayaga si gaara ugu mahadcelinaya
waxaan kale oo rabaa inaan taabto isbitaalka waa la furay waana hirgalay hawo badanna waa u baahan yahay gaar ahaan waxaan aad ula hadlahayaa hadalka intiisii nuxurka lahayd waxaa maray raggii iga horreeyey kan ku daraa waa malab lagu daray miisaan ma ogiyo macaan ma kordhiyo waxba ku kordhin mahaya intii la maray waxaan la hadlahayaa wax yar ku taabanahayaa qolada sirita la yidhaahdo ama la yidhaaha caafimaadka meeshaan waxa kani waa caafimaad wax gaara weeye dhowr qaybood buu u kala baxaa mid waxaa weeye dad barofeshinaala oo sida xuseen aadan iyo timir iyo wixii la mid ah ayagu aqoontoodii iyo garashadoodii iyo waxay kordhin lahay waa sheegeen waa dadna waxaa weeye dadka intiisa kale oo u dhaxaysa oo su sarreeya agaasimuhu ama ha ahaadeen nersis farmashiiste medkisoon u hooseeyo yani dadka waxdhadhaya u hooseeyo waxaan codsanaynaa wuxuu waa naf la badbaadinayo ma aha askari maaha laleeyahay xoog buu leeyahay hala uro barofeshin baa la rabaa in la hubiyaa la rabaa naf baa la badbaadinayaa inaynaan oran war muuse waa nin fiicani darishadda ha laga soo rido in qof kasta aqoontiisa iyo barofeshinkiisa iyo waxa uu yahay inuu lagu qaato haddaad tidhaahdaan hebel ka xishood ama hebel u daa waxaa u dhib yar midkaan qiimaha oo medikisoonaha la yidhi anu talyaani baan wax ku gargarana kaa wax dhaya farmashiistaa jira nersis baa jira waxaa jira haddii ilaahay kuu reeya ninka la yidhaahdo shaybaar baa jira raajaa jira waxaa jira combyuutarba noocyadiisa anu ma tiri karo takhtar maahi intaa waxaa la rabaa qofkiin aan imtixaamin oo ka qaadin run wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cumar xaaji oo la yidhi 40 sano isagoo militari ahaa caafimaadkaa laguu bedelay waa khayr buu yidhi ama 40 naf la gooyo la barahayey haddii maanta naf badbaadinteed lay barahayo inta isu sarreeya haatan xuseen maxamed xuseen ahi waxaa laydinka rabaa inaad dadka badbaadisaan lama raba inaad tidhaahdaan hebel baa ii keenay recommendatione condition hebel ha oranina ilaahay baan idinku dhaarshaye dadkaas aqoontiisa iyo kartidiisa iyo garashadiisa iyo qof walba waayo aragnimadiisa ku qaada qof aan la imtixaamin annagu hagaanu darajada meeshaan ku haysan annaga haysan jiray meeshaan horta haban dhowr baa haysan jiray sooma geli jirin meeshaan la yidhaahdo ikeen waxbarashada qofaan soo barin ama cumar sabantar ama shaafici ama gambool soo barin nooma imaan jirin haatana darashaday ka yimaadeen isbitaalka nimaan soo barin isbitaallada oo laga soo qaadin nooma imaan jirin war hargaa furantaan naga daayo kaas maxamed xuseen baa iska leh cid kale oo la wadaagta ma leh timirow adigu laftigaaru waa uu ninkaana oday ka adigu waxaa tahay professional baa tahay waad garan ka dhaa wixii sheego waa dhici ka dhaa intaasaa kula dardaarmaya waxaan kaloo la dardaarmahayaa inta isu yahay ninka la yidhaahdo maxamed cilmi cali waxaan idinkula dardaarmahayaa annagu adiga shaqaynaynaa goormaan idinla shaqaynaynaa goortaa wada shaqaysaan goortaa shaqadiina ku fillaataan warba halkiiseeya goortaa shaqadiina ku fillaataan goortaa idinku qof walbiba taytalkiisa ku shaqeeyo goortii amdii bogna wadila saaqaadayna haddaa idinku sidii kawsalo amarka jira isku gaba laabataan mana idinla shaqaynayno hadda waana idin ridayna waana idin ridi karnaa ma ahidin kitaab ma ahidin kitaab meesha ma ahidin xadiis dalla keenay baa tihi meeshaa laydin keenay ama door ha laydiin mido ama si kale ha idiin keenay waxaa laydiin keenay in aad idinku isku fillaataan annaga nagu fillaataan dalka ku fillaataan maaha oo kaliya inaad tiriiban u qoran tihiin meeshii wax ka yimaadaan ama tuulo ha ahaata ama gobol ha ahaata ama meel kale ha ahaatee attention inaad ahaan bay inay idiin taagnaadaan الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحقيقة أنا ما راح أطول عليكم. بيسعدني بس إني أنا تعرفت عليكم، وبيسعدني إني أنا أكون موجود بيناتكم. وكوبا السلام عليكم مركب هراء وأكون فرح سنة هنا إذا لو جوابه وعند الله نور عايد البقتين. الحقيقة أنا اسمي سليمان هدايا، طبيب جنرال براكتيشنر من أكثر من 20 عاما. طبيب العربي؟ لا، من جنرال براكتيشنر ممارس عام. أكثر من 20 ممارس. أكثر لبعض سنة قبل شقيني وتحترمات كل شقيني وهي خبرات له. أكثر من شهر. عملت أكثر من 10 سنوات في السعودية. طبعا سنة سعودي كنت شقيني. الحقيقة صارت لي فرصة اليوم إنه أجي حتى أحاول أقدم لكم خدمة ونرتفع بالمستوى. قالوا أنا إيدي ما هل كان كخدمة كأدي عفمات كبحية. ونرتقي بالمستوى الصحي في الصومال. إذا كانوا قالوا تهيئ عفمات الصومالي خاصة قبل كان دقمنا وشوي ترينا إن شاء الله. إن شاء الله. الهدف الحقيقي هو رفع مستوى الرعاية الصحية في جريبل. هدف كيف واحد وير إن أن دريال كعافمات كبرشة الرجل من كرو قال. تاسع دنا يا هذا في أبوين. نتمنى أي ملاحظة موجودة تزودون تعطونا إياها لحتى نرتفع بمستوى العمل في المستشفى. وحي أدري مثال عافمات تصاب سنة هاليسو بالدنيا سأن أن داوين تفرق عن إن شاء الله. يعطيكم العافية. السلام عليكم. عافمات. وقت النوم هذا مش عبيدة هي. waxaan meel fog ka doonaa labada mool yar yar inuu u jiray 4 bilood midna waxa la yiri jiray 7 bilood markii aan soo galay degmada gudaheeda bal labadii waxay waxaan ku doonaa tabaro 70 kiiloomitir baan ka keenay midkii dambe soo guriga saddexdaal baan ka soo qaaday adii hooyada leeyahay degmada jiray guriga ku dhintay wuxuu nafaqo daro iyo dayac kuwa ka danqaday oo halka ay ku yimid oo waxa ay dhaceen og waxaan leeyahay meesha ka sii wada guuleystana waa kaas waa qodbo joogtan la hadlaya walaalahana saasan leeyahay bahda caafimaadka oo fadhida waa tilmaamayna badan oo dhaqaatiirta caamka ay fadhido waxaan leeyahay annagu waxaan rabaa hoggaansan وإحنا نقول إنسان بعدين عم كلام لا قبلنا. إحنا نقول إنسان بعدنا وأربنا هاي وأنا ما هتسمتين وح الله لو وح الله إنسان بعدنا راعينا. دولة مطلعا وطابنا. هذا يقدر وحروك على خطايا مركب على خطايا. كفتما يريد مرة وعرقنا لكن بعضو فرن ما عرقنا ما وين هذا. يروح على واحد كرمنا مرد إسبتال وين الفري. وإسلام جودة ودمنا تجريبنا وحنا رمنا إن لكل أن كل هو وحنا لا نهلا إلى رمنا. دمنا تجريبا كاسو مالي الله بحنا يمد ما هي لي ما أنت بالشدة هي بوتلان أما جارهان قبل كمدو وحيالها الله بحق وحكم إذا عافماتك أو أساسك بالشدة ما هي لي أبارت وحي كنتي عافمات درو هذا قبل كوحوريجا يتيمم عافمات oo ka soo anbabaxay garowe oo wasaaradda caafimaadka ay soo dirtay waxa weeyaan hadii maanta jariiban 53 tuula ay xukuntaa oo aad u kala fogfog waxaan u maleynayaa mid labada isugu dhow in 5 kilomitir meelaha isu jiraan intaas oo aragteen baahida loo qabay isbitaalka oo ku soo beegmay maanta oo abaaru jirtay horumarkaas inta leeg waxa loo baahan yahay sidii lagu hanan lahaa ama lagu beeran lahaa waxayna u taalaa bulshada reer Jariban waxay u taalaa maamulka ilaa heer gobol hadii la yiraahdo waxa kale oo idin sheegaya Dr. Maxamed Xuseen iyo Dr. Timir ay sheegeen mashruuc waxa jiray ka socday isbitaalka guud ee degmada Gaalkacyo isbitaalka gobolka mashruucaas wuxuu ahaa qoodin MSF baa timid mashruuc waxay keentay qoodinay dhowr mashaariic سأوجد مشروعي وحال الدمعي إيميل كلا لوريتي مشروع أسوق صعنة مدة 6 سنة ما سيفوي مشروعا إما سيفوي عنده كربت إسبتالكي قال كعيو مشروع كلنا وح فنجريني سيف ذا children مركب مشروع صدق هذا صعنة وحنصيبه هالشيء إسبتال كان عصب تقريبا
taasna waa guul xilli loo baahnaana ku beegmay waxaa kaloo jiray mashruuc kale agaasimaha naftigiisa aan u balansanayn wuxuu yidhi khamiista marka isbitaalka jariiban aan ka imaano banaadaya hay-ad tika la dhoo turki ah oo Soomaaliya wax badan ka qabatay gobolada Puntland mar bay soo gashay dhowr mashaariic yar yar bay ka fulisay nasiib darro nin baa looga dhaawacay ninkii haystay kadib way naga insaxaatay maanta way noo soo laabatay hay'adii mashaariic badan bay rabtaa gobolka inay ka fuliso agaasimaha iyo aniga habeen dhaweyd baan la kulanay wixii ahsumin agaasimaha iyo barasaabka xafiiskooda weyn Muqdisho baahiyaha lagala hadlayna waxay dhaheen hadaa dhaqaatiir u baahan tihiin waan siineenaa hadaa u baahan tihiin tababar caafimaad waan siineenaa hadaa qalab u baahan tihiin waan ka saacideynaa waa xagga caafimaadka agaasimaha dadka la azumay buu ku jiraa asaga iyo tiimkiisa hadii la yiraahdo waana ka wada hadalnay dhaqaatiirta halkan loo qaadanayo oo haddana asaga uu idin sheegay inuu gacan weyn ka geysanayo tababaridooda iyo waxyaalahooda dhan inuu qayb lixaad leh ka geeyo xafiiskooda weyn ee Turkiga Tiko hay'adda Tiko in tababaro ay siiso marka insha Allah Rahmaan sidii loo hanan lahaa oo mirahan maanta baxay loo beero geedku marka la beero wuxuu u baahan yahay waa garan kartaan waraabin buu u baahan yahay ilaalin buu u baahan yahay xanaano badan buu u baahan yahay